xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa codka kalsoonida u qaaday qaraarkaasi ee la horkeenay ee akhrinta labaad ahi 65 xubnood ee baarlamaanka ka kooban yahay ayaa si buuxda oo aqlabiyad ah ugu codeeyay ansixinta iyo meelmarinta qaraarkaasi wax ka beddelka dastuurka. gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaranka mudane Daleyti Maxamed Daleyti ayaa si rasmiga ugu dhawaaqay natiijada codbixinta isagoo sheegay in dhammaan 65 xubnood ee uu ka kooban yahay baarlamaanka qaranku ay si aqlabiyad ah oo buuxda ay ugu codeeyeen qaraarkaasi oo uu yahay mid meel mar ah. gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaranka waxa hadaladiisii ka mid ahaa: Monsieur le ministre, honorables parlementaires, je voudrais vous communiquer les résultats du vote. Sur les 65 députés, les 65 ont voté pour la ratification de la révision constitutionnelle.